Xoghayaha arrimaha dibadda Mareykanka Mike Pompeo ayaa magaalada Addis Ababa kula kulmay ra'iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Ahmed iyo saraakiil kale. Booqashada Pompeo ayaa diiradda lagu saaray amniga, maalgashiga, isbedelada siyaasadeed ee Itoobiya iyo muranka Itoobiya kala dhexeeya Masar oo ay xulafo yihiin Mareykanka. Itoobiya ayaa kadib kulanka sheegtay in Mareykanku uu qorsheynayo in taageero maaliyadeed oo mug leh uu siiyo Itoobiya si loo xoojiyo isbedelada. Itoobiya ayaa bisha Agoosto waxaa ka dhici doonta doorashooyin tijaabo u ah isbedelada ra'iisul wasaare Abiy Ahmed, taasi oo wacad ku maray inay noqon doonto mid xur iyo cadaalad ah. Doorasho xur ah oo la isku halayn karo waxay muujin doontaa in qof kasta uu cod leeyahay, ayuu Pompeo u sheegay wariyaasha. Ma haysano wax khibrad dimuqraadiyadeed oo hore ah, balse waxaan masraxa u furi doonaa dadka oo dhan, ayuu yiri wasiirka arrimaha dibadda Itoobiya Githu Angrechwi. Kulanka ayaa sidoo kale lagu soo qaaday xiisadda Itoobiya kala dhexeysa Masar ee ka dhalatay biyo-xireenka ay ka sameynayso webiga Nile, kaasi oo ay ka soo horjeedo Masar oo xulafo la ah Mareykanka. Waxaa weli jirta shaqo culus oo loo baahan yahay in la qabto, waxaanse ku niyadsamahay in bilaha soo socdo aan arrintan xalin doono, ayuu yiri Pompeo. Heshiiska madambeysa ayaana la filayay bishaani. Xoghayaha arrimaha dibadda Mareykanka ayaa ku dhawaaqay in Mareykanka uu bixin doono $8 milyan oo lagu taageerayo la dagaalanka ayaxa ka dillaacay dalalka Itoobiya, Kenya iyo Soomaaliya.